waxaanu helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo taabuu markaa nebigu adeerka abu aalib uu ku lahaa kelmadda aniga hal mar keliya imaqashii maalinka qiyaamaha kuu shafeecad qaadi doonaaye deedna nebigana sala allahu calayh wasalam adeerkii waxaa ag fadhiya abujahl calayhi lacna fircawna haadihi اlummah ayaa markaa ku yidhi abaa aalibow ma diintii aabbayaasha aad ka dhaxashay ee milladii cabdulmuطalib intood ka leexata maad moxamed maanta warkiisa aad qaadanaysaa deedna markaasuu iska aamusay abu aalib haa iyo maya midna ma odhan deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama hal mar adeer aniga kelmaddaa i maqashii maalinka qiyaamaha han ku shafeecad qaade hadalkii u dambaysay abaa aalib uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhaahdo calaa millati cabdilmuطalib baan ku dhintay moxamedow aniga iska kaydaa deedna naftiina way ka dhacday labadaa indhood isagoo nebiga ilintu ay ka daadanaysa buu nebigu ka kacay halkaas maxaa yeelay adeerkii u jeclaa nebigu kursiintiisa iyo maaragtaana ilaalintiisa iyo racaayadiisa qayb xoogle ayuu markaa abu aalib uu ka soo qaatay khayrkuu nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa laakiin hidaayadda nebi maxamed ma hayo ilaahay baa ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu aad jeclaata ma soo hadaynaysid baa nebiga lagu yidhi waa hidaayadda tawfiiqda waafajinta ilaahay baa iska leh ka aan doonna annaka hadaynayna baa ilaahay yidhi caza wajal kuwa hanuunayana annaka naqaana baa ilaahay nebigiisa uu ku yidhi marka hidaayaddaas ilaahay baa milkiyey cid kale ma hayso oo dee nebi maxamed hadduu milkin lahaa hidaayadda bilaalow xabashiya hidaayadda ma heleene abaa aalib oo qurayshiya buu nebigu hadayn lahaa abulahab oo qurayshiyo nebiga adeerkiya buu nebigu hadayn lahaa hidaayadda haddii ay cid milkinayso een maaragtaane dee nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii gaalnimo kuma dhinteene bal hidaayadduu ku deeqi lahaa uu siin lahaa marka hidaayadda ilaahay baa haya caza wajalla kuu doonana ilaahay isagaa hanuuniya kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa baadiyeeya oo lumiya muuse binu cimraan waa nebi muuse calayhi salaam oo 30 sannadood aqalka fircoon ku barbaaray oo ku korayna ilaahay uu hanuuniyo waxa uu ka dhigay nebi rasuulah oo la yidhi waliba wakallama allaahu muusa takliima waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay caza wajalla hadalkiisa ku maqlay buu ahaa nebi muuse calayhi salaam nebi muuse oo aqalka fircoon ku barbaaray ka hanuuniyey ee risaaladda u doortay inuu nebi rasuula uu noqdona waa allaahu rabbulcaalamiin weeyaan waxaa kaloo hidaayadda aanan nasiib u helin ninkii la odhan jiray saamiriy muuse binu dafar baa isagana la odhan jiray buu yidhi ibnu cabbaas waa ninka reer bani israa'iil ahaayee malakuljibriil suuraddiisii malakiga intuu ku arkay haddana ilaahayna rumayni waayey rasuulkii loo soo dirayna raaci waayeyna kaana hadday ay noqonayso hidaayaddu in qof uu hadeeyo aragtida jibriil uu ku hanuuni lahaa limaada jibriil waa malak ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qaamad iyo quwad iyo taaqad ku abuuro siiyey ninka malagaa arkayna ilaahay hidaayadda kumuu deeqine ilaahay hidaayadda waxa uu ku deeqay ninkii guriga fircoon ku barbaaray ayaa ilaahay hidaayadda ku galladaystay marka hanuunka ilaahay baa bixiya innaka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo nicmeeyey oo hanuun baa ilaahayna siiyey laba xaas oo qur-aanka lagu sheegay daraba allaahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay'a waqiila idkhula annaara maca addaakhiliin wadaraba allaahu maalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalihi wanajinii min alqowmi aldaalimiin waa laba qiso oo cajiibah fii suurati taxriim bay ku taallaa awaakhirkeeda waa laba qiso cibro qaadasho leh oo la raba inaad ku cibro qaadatid ood islaamnimada iyo hidaayadda ilaahay kugu deequu ku siiyey adoo aanan weydiisan baa ilaahay qof muslima ilaahay uu kaa dhige waa inaad nicmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ugu mahadinaa oon qadarinaa waa laba xaas labaduba laba nebi bay ku hoos noolaayeen mid waa zawjatu nuux calayhi assalaam midna waa zawjatu luut calayhi assalaam labada nebi xaasaskoodiina ilaahay hidaayadda albaabadeedii waa ka xidhay gaalnimo ayay kula noolaayeen iyagoo gaalnimada qarsanaya